walaalayaal magaalada Muqdisho oo magaaladiinii caasimadii dalka Soomaaliya marar badan waan sheegay haddana waxaan rabaa inaan hortiina ka sheego magaalada Muqdisho waa magaalada dadka Soomaaliyeed dadka ku hadla afka Soomaaliga magaaladoodii dadka afka Soomaaliga ku hadla haddii ay dareemaan inta aniga aan magaalada Muqdisho duqeedii ahay wax ay dhibsadaan ama in ay dareemaan inayan ula mid ahayn kan meeshaan ku dhashay ama hadda degan mas'uuliyaddeeda ana qaadanay bulshada ku nool magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxa ka go'an Soomaalida Gaarisa Soomaalida Jigjiga Tanjabuuti iyo midda Hargeysaba inay iyo midda Muqdishoba si isku mid ah inay ula macaamilaan ula dhaqmaan taas ayada waa naga go'an tahay waajib ahaan waan u qaadanay waana ku sii dhaqmi doonaa haddii aan leeyahay waxaan kula dardaarmayaa isagoo qof waliba meesha uu ka leeyahay iyo abaarta uu leeyahay iyo miisaanka uu ku fadhiyo aynu u kacno dalkeenna iyo dadkeenna aynu ka baajino bahalka ama baadida bahalka ama bixidda uu cidlada iyo badaha kale ku dhumayo waxaynu kaga gudbi karaa wada jir iyo tala midaysan Soomaalinimo oo la raadsho banqabi kara nabad oo dhalata banqabi kara waxaan leeyahay marka dadka maanta halkaan fadhiya caawa oo Soomaaliyeed qof walba waxa laga rabaa abaarta uu leeyahay iyo mudnaanta uu leeyahay